Assalaamu calaykum dhammaan khayrta waa idin salaamay soo dhawaada halkan ka bilaabana what is variable. Variable waa name, waa magaca waaye magacaas markaa lagu keediyo data xog memory computerka markaas lagu keediyo. Tusaalahaan waa kuwana markaa name equal Ahmed, age equal 25. markaa name iyo age labadaas waa variable name aan lahaa. marka halka markaa 25 meelahaas oo kale equalka u dhaxayso equal ayaan waxaa lahaa assignment yaa lahaa operator yaa lahaa. halka marka Ahmed iyo 25 ay yihiin value-gii la keediyay marka variable saas waa marka waa magac markaas kaasoo marka keedinaya value marka magacyada waxaa la variable names. halka marka calaamadaasna waxaa loo yaqaanaa oo equal ta ah waxaa loo yaqaanaa assignment operators. halka marka Ahmed iyo 25 waxaa loo yaqaan dhinacan wax xigana waxaa waaye value. marka variable-ka wuxuu u taagan yahay aanay waa sida container oo kale, waa shay container ah wax lagu rito camal kaas marka haayo value-ga haayo. waxaa fahmayna marka variable-ka rules-ke marka variable in la magacaabo la rabo wuxuu leeyahay rules ayuu leeyahay. variable-ka waa inuu ahaadaa start waa inuu ka bilowdaa letter waa inuu ka bilowdaa or ama sidoo kale xitaa calaamadaas underscore-ka waa inuu ka bilowdaa. lama ogola inuu ka bilowdo tiro iyo waxyaabahaas. cannot start kama bilaaban karo number, kama bilaaban karo variable magaciisa, sidoo kale kama bilaaban karo ama gudihiisa ma noqon karo space. cannot use space, wax space lama kala dhexaysiin doono. sidoo kale waxay tahay variable-ka waa case sensitive oo laga wado xarafaha uu isku fiirinayaa oo haddaan hadda names aan dhahno iyo name oo capital haddaan dhahno uu kala garanayo laba xabo uu kala yaqaano marka waa case sensitive iskuma eg. sawirka fiirina marka variable-ka saxda ah ee valid-ka ah si loo qoro waa kuwana marka name waa Ahmed, sidoo kale age haddaan rabno waxaa ka hormarina calaamadii underscore-ka ahayd waa saas waa yeeli karnaa. haddaan rabno space inaa u kala dhexaysiiso tusaale kale total marks marka qaar space loo baahan doono variable magaciisa si uu dheeraado. total marks aan dhahnay total space marks qalad waa in calaamadaas isticmaala calaamadaas ayaa space ahaan loogu kala isticmaalaya calaamadaas underscore-ka ayaa lagu kala durkinaya labada shay. in failed variable-ka saxda ahayn marka la sameynayo oo qaldan yahay habka qaladan waa in tiro laga hormariyo waa qalad. variable-kaas waa qalad ayaa ku gashay ma soo saaraya errors ayuu soo qorayaa maadaama tira ka hormarta. sidoo kale meeshan total marks space aa isticmaalnay qalad waa markaas. marka variable-ka validkiis waa noocaas xeerkaas uu leeyahay. invalid marka waa noocan ayadan halkaas marka waxaa ku weynaa marka variable wuxuu yahay iyo sidoo kale habka loo qoro ruleskeeda.